بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يا مركلة يوتيوب كأبوان شولي صاحب وبرنامج كيني جوبتدا aha ee hore noogu soo socday saaxiibada nagu cusub tahay fadlan subscribe like share comment noogu caawiya oo noogu camaamada waayahay waxaan rabaa barnaamijkan taariikhda cajiib waay barnaamij aad cajiib u ah waayo waxaan mararka qaarkood naftirkeyga taa xusuus i soo gelinaysa oo dhacdooyinkii aniga aan goobjooga ka ahaa iyo wixii aniga i soo maray iyo wixii fanka dhexdiisa aan kala kulmay ayaan rabaa inaan idin soo gudbiyo marka mararka qaarkood xusuus iyo ayay gelinaysaa waayahay maanta waxaan rabaa haddii ilaahay ka raali noqdo inaan qayb ka mid ah inaan ka dhigo xusuusta fankii hore inaan qayb ka mida ka dhigto barnaamijyadii riwaayadihii banaadiriga ahaa riwaayadahaas banaadiriga ahaa waxay ahaayeen riwaayadaha Soomaaliya laga daawado kuwa ugu qiimaha badan xaqiiqdii waxaana qiimahaas gaarsiiyay shacabka Soomaaliyeed waayo waxaan xusuustaa riwaayada markii tiyaatar nationale la soo dhajiyo tabeelaheeda ee dadka ay yiraahdaan alla waa riwaayadii hebel magaceeda saas la dhihi jiray actor hebel iyo actrice hebel iyo oday hebel iyo hooyo hebel ku jiro markii tabeelaha kooxda music tumaysana lagu soo qoro riwaayadaha banaadiriga waxay ku qiimo lahaayeen 45 habeen ay soconayeen riwaayada laga yaabo 45 habeen oo isku xigta riwaayad tiyaatarka laga fiirsadeen ahayd waxaa iigu yaabadneed dhacdooyinkii fanka hore markii aan ka fiiriyo riwaayadihii kale ee adiga dadkeeda riwaayadaha horta waa laba nooc riwaayadana korka inta la soo koro kor laga heesaa korna laga jilaa kuwa riwaayadaha banaadiriga laakiin waxay ahaayeen jilitaan baad korka arkaysa dadka heesaayo godka ay ka soo heesaayeen meesha laga heesaayo dadkan kor ku saaran waa ku jilayaal baa kor saarnaa oo ma aha sida qaabka filimka oo kale ay riwaayadaha banaadiriga ahaan jireen ay waxay ku kala duwanaayeen marka riwaayadaha Soomaalida ay leedahay labada nooc ay ahaayeen waxa waaye qaybna masraxa inta la soo koro la heeso ana la jila qaybna waxay ahayd masraxa waxa ku saaran jilayaal oo kaliya heeskaba waxa laga soo heesaa godka jilid baa inta ku imaanaysa dadka meesha saaran waa jilayaal maaha dadkii heesaay godka laga soo heesaa heesku godku ka soo baxa waaya riwaayadihii marka waxay ahaan jireen 30 habeen riwaayad 31 habeen 35 habeen riwaayadda 35 habeen ay socon jirtay riwaayad la dhihi jiray damac adduun ayaa waxay noqotay mid iskoorka jibisay waxay noqotay riwaayad socota bil iyo bar waa 45 habeen oo isku xigta riwaayad socota halkii riwaayad la daawanayo waxay ahaayeen riwaayadahaas riwaayada aad u kala qiimo badan xaqiiqdii fiiri tusaale ahaan riwaayadaha oo caadiga ah waxa la fiirsan jiray 30 habeen 28 habeen 35 habeen meelahaas waa dadka gawaabsi noqonayeen waa la iska joojinay riwaayada laakiin damac adduun la yiri waxay noqotay riwaayadii iskoorkii soo socday dhan jibisay 35 habeen la dhigi jiray iskoor way riwaayadan 35 habeen ay socotaa waxay noqotay iyada iskoorkii inay dhaaftay oo 35 habeen meeshii laga fiirsan jiray riwaayadaha iyada keeda wuxuu noqday 45 habeen 10 habeen oo dheeraada inay sii socotay gaartay iyadoo la jecel yahay in la yiraahdo war laba bilood ay ku sii socotay joojiye riwaayada waxay noqotay riwaayadaas damac adduun maxay ahayd maxaasi ka mid ahaa damac adduun riwaayadaas la dhihi jiray riwaayadihii waqtigaas socday oo xilligaas oo dawladdii Maxamed Siyaad Bare raxmatullaahi calayhi ilaahu maxariistee riwaayadihii banaadiriga ah ee socday ee step ka ahaa ee marba qayb oo socday oo intaas soo socday ayay waxay noqotay mid ka sii dheer waqtigeedii
دمع دون heesaageedii waxaa ka mid ahaa baaba aweys khamiis cabdalla sitey maxamed sheekh qosol wanaag maamada waa ku salaamaa maasha allah maamada weliba si gaara u salaamaa maama sitey waa waqtina waa isla shaqayni baaba aweys iyo maama sitey maasha allah waa dad aan aad agtayda qiimo ku leh runtii fanka ma ogtahay sidiisaba fanka waa laysku ixtiraamaa war fanka daara lagama dhisto dahab lagama gadin macdana lagama qodo fanka waxaa lagu haystaa oo keliya magaca iyo sumcadda aad leedahay inaad ilaashato dadkii kaaga horreeyeyna aad ku ixtiraamto adigana waa lagu ixtiraamaa haddaad dadkii adiga kaaga horreeyey fanka aad qadariso qiimayso ixtiraamto adigana waa lagu qiimaynaa waa lagu qadarinaa waa lagu ixtiraamaa fanka sidiisaba wuxuu ku dhisan yahay waa magac iyo sumcad iyo ixtiraam احترام دي اللي جواي واحد جرى متيد بلا شيء وخرد دعسنا واحد جرى متيد حقيقة وحواي فنك من احترام فنك وإذاب أسلوب إن هذا تذكر إذاب له ولا نخميس يا أخي فنك وحوك في عيال قبضع يخرد دع معها فنك وحواي فنك وياي احترام تذكر هذه كابوري احترام هذه أنا كوي كادم بيه هكو احترام فنك من جود هانتس احترام واي هدي لوايو احترامك هدي لوايو مش فن يا له والو كرتو دونك وميمسن فن وحال دبر ان له احترام واي واد سلام يا dadkaas qaaliga igu ah iga horeeyay fanka oo aad aan qiimo ugu hayo waayahay heesaagii damac aduun ayaan wadaa baba aweys sitay maxamed sheekh qosol wanaag shimaali axmed shimaali أحمد شريف كيلر رحمة الله عليه وابردنتك سر إلهي ونحرسته وحال ربع فنكا ساس أيوه هساقي دمع دون هدان صو إن كميد هدان إدين صو تابتو إنتا ساحرت هدان إدين صو طلي وايه جلاغي هذا يفترض بالنايم مكي حاج بنادر كميدها عبد السلام يوسف علي إلهي ونحرسته سبحانه وتعالى وابردنتك عبد السلام جيني محمد عثمان هنا أيها كميتها هنا ونولي حفظه الله عنكو سويدن إنو جوغان ملاينا ما هو لكن سويدن ملاينا أبو كرجاجومو أيا مر فيسبوك وعارك يصور كيسة أصولك إسلا صوريين هنا يجاجومو وصلا صورة لكن اسم ميل جوغان أمبارخ عن سادالينا موبي mana welina islama hadlin meelna kuma sheego jaajumo laakiin xiriirnaa jaajumo oo dhowr jeer waa wada hadalnaa waa xiriirnaa oo telefoonka caadigaan ka wada hadalnaa oo meel walbaan ka wada hadalnaa jaajumo caadigaan u xiriirnaa laakiin ina meel kuma sheego laakiin waxaan u malaynaa inay jaajumo isku meel yihiin maadaama ay isla sawiran yihiin aan arkay waxaan u malaynaa ma hubo inay isla meel joogaan marka waana salaamaa saaxiibkay maxamed cusmaan ina oo asxaabtayda fanka aan isla joognay ka mid ahaa aad aan u salaamayaa saaxiibkay waayahay riwaayadaas damac aduun la dhahayay riwaayadihii ka horreeyay oo dhan 30 habeen 28 habeen 30 habeen 28 habeen 27 habeen si loo socday muddo ugu qatarsan oo iskoor jibisay 35 habeenay soconaysay damac aduunaa timid 45 habeenay socotay iskoorkii dhan ba iidaa jibisay riwaayadahaas markaan dib ugu laabto oo dib taariikhdii fanka hore aan xusuustii fanka hore barnaamijkan aan ugu magac daray markaan dib u xasuusto kooxaha banaadiriga muusiga u garaaci jiray shareero iyo iftiin ugu badnaa muusishinka ugu badan ee riwaayadaha banaadiriga tumi jiray iftiin iyo shareero Somali jazz waa bari ayaa ku xigi jirtay dadka ugu badan ee durdura markii dambe aad timid adiga ilaa 4 riwaayadood camalaad malaynaa inay wax ka tumeen qaarna la dhigay qaarna wali aygoon la dhigin iska wadankiina ugu burburayba adiga iftiin iyo shareero iyo waa bari saddexdaas guruubaa ugu badnaa riwaayadihii la soo tumay wadankan kooxii ugu badnaa oo tumay lacala haddii aad
kooxdii ugu badneed haddaad ka rabto shareero iftin waa beri saddexdaasaa ugu badnaa saan u kala sheegayna u kala badnaayeen shareero iyadaa ugu badneed iftin aa ku xigtay waa beri saa kooxahaasaa riwaayadihii banaadiriga ahaa weliba iftin inay ka badneedaan u malaynaa haddii meelaha qaar laga xisaabtamo shareerada xataa inay iftin ka badneed ayaan xasuustaa iftinaa ugu badneed wax riwaayadaha tumay banaadiriga ah iftinaa ugu badneed okay ayan kaanad riwaayadaas damac adduun iftinaa tumaysay iyadana caatoobay ceesh waa ka go'ay cawa ma jiif doonte heeskaasaa ka mid ahaa riwaayaddii damac adduun hadallaan loo jooginaad weliga haneedisaa hamuunba makuu qab odaney waa kaa hele hurdadii howshaydiya runkaa u hilmaamaye riwaayaddaas riwaayad oo toobay ahayd runtii xaqiiqdii cajiibay ahayd heeso aad u macaanna way lahayd riwaayaddaas mariisaa ka mid ahayd wixii jilayaasheeda ahaa zaar cabdulqaadir aweysaa ka mid ahayd wixii jilaayay marka adiga ayankaanad riwaayadihii oo siday u soo socdeen iskoorka kale ka dambeeyay say u khatarsanaayeen 30 habeen 27 habeen 26 habeen 28 habeen 25 habeen si loo dhahay 30 habeen 35 habeenay tagto riwaayad oo tan khatar waa si loo dhahay waxaaba timidba riwaayad la yiraahdo damac adduun oo iskoorka ugu sarreeyay tagto 45 habeen socotay iskoorkii ugu yaabka badnaa oo soo dhigtay marka damac adduun riwaayadihii banaadiriga ahaa markaan dib u milicsano iyo fanaaniintii waa lagu badnaa fanaaniinta adiga wax badan atriisha haddii la dhaho mariisa zahruuja xaliim hilaac khadra allahu akbar iji qalanjo faynus sheekh daahir allahu akbar gabdhaha kartuum sheekh ibraahim xaawo xasan xaawo luula maxaa la dhahaa ilaahu aada beerku dhimanin jaad cabdullaahi xaliim hilaac adigaa soo wad wiilasha nuuraani maxamed iikar jeesto maxamed cusmaan ina cabdisalaam yuusuf jiimi محمد عبدو سالم عثمان أميتا الله أكبر أردد أبو كرشي كالي عبد القادر بيلي مرنيهم ضد والله ضد واجري dad aad jiri beerna calaa ku yaala dad nool oo fankana qiimo ku lahaayay ahaayeen ilaahu kuu naxariis dad waa dhintay ama waa dhoofay horaan kuugu sheegaani dad oo fankan sharaf ku lahaa oo haybad iyo qiimo ku lahaa amaa waa dhintay amaa waa dhoofay waxaa shooligii wax saas camalaa soo heri waa iska shooliyaa soo heri jilayaasha kale مكي حاج منادم وضي عبد الله نور اسمان جيتي الله يكون حريص سعيد خليف علي عبد محمد الكعسي شريف بلدوس صالح شيخ دقدق شيخ جاس الله أكبر إله يكون حريص أرض ضد انتين يعني وكل شيء ضد انتين أموات في باب زي توم ماما خديجة هاي الله أكبر إله يكون حريص ضد انتين إله يكون حريص ضد انتين إله سبحانه وتعالى هو حريصته إن ضد أخالئة وليبو ضد أخيمة بدر واحترام مطنع
إلهي سبحانه وتعالى ونحرسته فنك حصوص فنكي هوري برنامج كان إنا قلبه مكفيعنين وايو أنا سيجارة أنا موقتها دتك إنا احتراما جعلها الشخصية دي دتك إنا قيمة وكرامة جعلها دتك أن جعلها إنتو ضبطن وهذا والد أو احترام سنة حقيقة هوي أبو دتك وحن نيجرا بابا ماما احترام عنه هاي دتك قيمة هالهاوي انتين الله يرحم الراحمين لما أنتم إلهي ونحرسته سبحانه وتعالى برنامجك حصوص فنكي هوري قيبتي مركة روايته بنادرية أها إن شاء الله تعالى ما أنت بالله waxaan isku dayayaa insha Allah barnaamijkan inaanan joojinin walow uu dhib iyo calool xumo igu yahay aniga oo aad nacam dadkaygii ay yihiin dadka oo aad aan ay ugu yihiin dad qaali ah si kastay ahaato laakiin insha Allah ma joojin doono waa wadayaa biidhnillah bal dadkiina waa soo xasuusanaya dadku waa dhintay ama waa dhoofay صاحب يوتيوب أبو أشولي برنامجك واسوقه بايا كيفها كلا دبان هذا كرك سوقلين دونا هذه إلهي قدره وإذا بنادرجة أها عيان ربع إن عن مد ودول استاج كيفه أنيجا عن جوب جوب كأها عن كلا كل مي يوحي عن كعركي أنت أني كل جدال كجارة منها يوتشنين هاستهين كان هو أكتف معهم بمحاول أو وحي لجرب وحلقيها بقى إن الواحد وين يجي سويس أنا قلت كيجا جدال كجارة هرانا واقول شيء meel dambaan gaariga ka soo qabsaday oo iska gawaabsi ah marka ilaahay idinkiisa insha Allah wixii aan goob jooga ka ahaa ayaan idin soo camaamadaya insha Allah idinku camaamadaya hadii ilaahay yira balse dadkiina waxaan rabaa inaan dul istaago xusuusto oo iyagana u duceeyo biidmillah tabaaraka wa taala ilaahay u naxariisto ilaahay subhanahu wa taala qabriga uu nuuriyo insha Allah wixii aan ka xasuustana taariikhda fankii hore wixii aan ka xasuustana waxaan rabaa inaan wax idin kaga sheego si aad dadka fanka ku jecel oo taageera iyo kuwa maanta ku jira iyo kuwa raba inay soo galaanba si ay taariikhdaas wax uga fahmaan bal ay wax ku cibri qaataan insha Allah dadkii hore si akhlaaq iyo adab iyo sharaf iyo ixtiraam ay iskaraamayn ayaa lagu dhaqmay insha Allah dadka joogow iyo kuwa rabow waxaan idin ka codsanayaa in la ixtiraamo la iskaraameeyo dadku waa in iskaraameeyaan ku fiican fanka sidiisa lagu sheegana waa ixtiraam fan aan ixtiraam ku jirin fan maaha fanka wuxuu ku dhisan yahay ixtiraam fadlan haddaad nagu cusubtahay youtube-ka Abu Asholi subscribe like share comment nagu caawiya Soomaali weyn waa mar kale youtube-ka Abu Asholi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته